madaxweynaha Israa'iil inuu yimaado oo waxa keenay Erdogan oo meesha yimid oo ka jawaabayay cabsi laga qabay inay Ethiopia ku biirto Israa'iil oo waliba ilaa hadda waqtigan u dambeeyo ay banaanka soo bixayso Ethiopia inay aad u doonayso kuna gorgortamayso anagu bad baan u baahanay qofkii diidaya hadiido qofkii yeelaya ha yeelo waliba ay hadalkiisa kamid ahayd Ethiopia waxa ay dabcan ka qayb qaadan doontaa sugidda la dagaalamka argagixisada musawac illa Soomaaliya musawac dabcan waa dekada labaad dekada koobaad waxa weeyaan asab iyo musawac ayagoo marka hore khaldamay 93 diinay sii daayaan ma ahaan marka waxa isdaba jooga Ethiopia waxay ka faa'iideysanaysaa oo ku gorgortamaysaa jaaniskan ay Israa'iil ay bixinayso iyo kala guurka adduunka inay ayadoo inta ku gorgortamayso inay hesho bad haddana waxa ay ka mid tahay bibi Netanyahu hadalkii uu lahaa xulufadii u dhisayay oo India Greek Qobos waxa kamid ah kuwa Afrika uu sheegay waxa kamid ah Ethiopia kuwiina ogwaad ogeydeen saddex markab inuu siiyay Ethiopia inay siisay oo Francisco loo tababaray haddana ay yiraahdeen ba uu yiri waxaanu ka guureynaa awoodii aan saareen dhulka waxaanu gudbeynaa badda marka Israa'iil waxay rabtaa in aan laga kasbanin Ethiopia oo wax kale lagu qancinin saas darteed bay u yimaadeen dabcan waxayna ku qancin doonaan inay dabcan ay la sidii hore ula socdaan maadaama strategic uu yahay ay Ethiopia tahay arrinta marka waxa kale oo ka dambeysay Ciro oo ah nin diblomaasi hore aad u yaqaan ciyaarta inuu ugu yeeray Mareykanka macdan dekad iyo dabcan macdan dekad iyo dabcan heshiisyo ay aad u dareynayaan Trumpna markii la yiraahdo macdan iyo dekad iyo base military markii la yiraahdo waa janska waxyaalaha priority ah marka arrimahan iska kaashanaya dhamaan waxay muujinayaan in ay halkaas wax ka soo socdaan ayna u baahan tahay taxaddar xadaafa ayna u baahan tahay iskaashi gudaha iyo dibadda qaybtan diblomaasiyiinta Soomaaliya ay ciyaaraan diblomaasiyad fadhida oo koob arrintaasi dabcan sidii loo badbaadin lahaa dalka